السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo goob kasta oo joogtaan ku soo dhawaada warkii Arabsiya News qodobada aad daawan doontaan kooda ugu waaweyn waxa kamid ah Mareykanka ayaa ka hadlay mowqifkiisa ku saabsan dawladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya dawladda Saudi Arabia ayaa Itoobiya dib ugu soo celisay ilaa 500 qof oo muwaadiniinteeda wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka ayaa booqashadiisii ugu horeysay waxa uu ku tagay dalka Shiinaha tan iyo dagaalkii Ukraine Amnesty International waxa ay sheegtay in maamulka Masar ay sii daayeen masiixiyiinta Coptic ee ku xiran mudaharaad ka dhanaha dib u dhiska kiniisad ku taala wadanka Masar ra'iisul wasaaraha Mauritania ayaa warqadiis ihtilaada dawladdiisa u gudbiyay madaxweynaha dalkaasi daawadayaal intaas waa qaar kamid ah qodobadii warka imikana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ma ka mid tahay xoolo dhaqatada Soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay wadanka gudihiisana diyaar kuugu ah hore u gaadh warshada Boundary Mills oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada Soomaalida haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore u gaadh Boundary Mills duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ninka lagu magacaabo Larry Andrew ayaa sheegay in dalkiisu uu ixtiraamayo midnimada dhuleed ee dawladda Soomaaliya oo soo bilaabmay 1960kii safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa kaga hadlay mowqifka Mareykanka ee Somaliland iyo Soomaaliya danjira Andrew ayaa Somaliland ku amaanay guulaha ay gaadheen isagoo xusay waxyaabaha u qabsoomay 30 sano kadib mar wax laga weydiiyay danjira Andrew hadal dhawaan ka soo yeedhay ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Molly kaas oo la kulantay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mowqifka Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya wuxuu kaga jawaabay waxaan kula wadaagayaa inaan dhashay 1961kii siyaasaddaasina waxay dhalatay 1960kii siyaasaddaasi way iga da'weyn tahay aniguna ma ihi qof da'yar waxa weeye in dawladda Mareykanku ay aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliyada madaxa bannaan dal kaliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah waxay ila tahay in ay fududahay waxaan ixtiraam weyn u hayaa waxa mas'uuliyiinta iyo shacabka Somaliland ay hanteen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha maamulka dimuqraadiga ah amniga waxaan ku baaqayaa in mas'uuliyiinta Somaliland iyo mas'uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Somaliland si u wada adeegaysa danaha dhammaan dadka Soomaaliya waa arrin go'aankeedu uu u yaalo dhammaan dadka Soomaaliya waa taas siyaasadayadu hadalkan ka soo yeedhay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya danjire Larry Andrew ayaa ku soo beegmaya xilli gudiyada arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska Mareykanku ay dhawaan codsadeen in Mareykanku uu kordhiyo xiriirka kala dhaxeeya Somaliland ee ku saabsan arrimaha diblomaasiyadda amniga iyo dhaqaalaha ra'iisul wasaaraha Mauritania Mohamed Ould Bilal Mas'oud ayaa gudbiyay istiqbaaladiisa ka tagitaanka shaqo kadib ku dhawaad 20 bilood oo ra'iisul wasaare noqday madaxweynaha dalkaasi Mohamed Ould Sheikh Al Ghazouani ayaa maalmo ka hor dhaliilay waxqabadka dawladda isagoo sheegay in shacabku ay kalsoonida kala laabteen ka hor inta aanu yeedhin ra'iisul wasaaraha inuu ku fikiro waxqabadka xukuumaddiisa dawladda Mauritania ayaa soo wajahday caqabado dhowr oo ay ka mid yihiin faafitaanka fayraska corona sare u kaca ku yimid qiimaha macaamiisha koronto la'aanta iyo biyaha la cabo Amnesty International ayaa ugu baaqday maamulka Masar maanta Arbaca inay sii daayaan 9 qof oo masiixiyiin ah oo Coptic kuwaas oo ka xiran xabsi ku dhow muddo 2 bilood ah kadib markii ay ka soo horjeesteen in dib loo dhiso kiniisad la gubay in ka badan 5 sano ka hor maamulka Masar waa inay si degdeg ah u sii daayaan 9 qof oo masiixiyiin oo Coptic ah oo sabab la'aan loo xiray kadib markii ay si nabad uga soo horjeesteen ciidamada maamulka ee
dib u dhiska ku sameynaya kaniisad la gubay in ka badan 5 sano ka hor ayaa lagu yiri warbixin ay hay'addu soo saartay. Amnesty International ayaa sharaxday 30 January in ciidamada ammaanka ee Masar ay ku xidhaan 9 qof tuulada isbeete baragal ah ee gobolka Minya. Dacwad ogayaasha ammaanka ee dawladuna ay soo saartay go'aan intaasi ka badan kadib xabsiga lagu sii hayo oo lagu eedeeyay ma la xiriira mudaharaad. muddo sanada mas'uuliyiinta Masar waxa ay iska dhagatirayaan baaqyada ayada ah in dib loo dhiso kaniisadda taasoo keentay in ku dhawaad 800 oo Masiixiyiin Koobtiga ay waayeen meel ay ku cibaadaystaan tuuladani. ayuu yiri Philip Lawther agaasimaha cilmi baarista iyo qareenka ee bariga dhexe ee waqooyiga Afrika Amnesty International. Kaniisaddan ayaa la dumiyay sanadkii hore kadib markii la gubay waxaana codsi rasmi ah loo gudbiyay si dib loogu dhiso laakiin maamulka maxalliga ah kama ay jawaabin codsigani sida uu sheegay ururku. dawladda Itoobiya ayaa dib u celisay ku dhawaad 500 oo muwaadiniinteeda oo shaqo u aaday dalka Saudi Arabia waana qaybtii ugu horeysay oo ilaa 100,000 oo Itoobiyaan oo ay dawladdu qorsheynayso inay ka soo celiso dalalka khariijka. tahriibayaasha ay dawladda Itoobiya dib u celisay waxaa ka mid ah haween badan oo ka tagay miyiga oo shaqo guri u tagay dalka Saudi Arabia. waxaa xuquuqul insaanka ayaa sheegay in soo galootiga sharci darrada inta badan lagu hayo xarumo cidhiidhi ah iyo xaalad bini'aadantinimo oo liidata. xaaladda adag ee dhaqaale iyo shaqo la'aanta ayaa inta badan ku riixaysa soo galootiga Itoobiyaanka ay dawladdu soo celiso inay dalkooda ka yaacaan mar kalena ay dalkooda dib ugu soo laabtaan marka ay waxba waayaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa Arbacadii carabka ku adkeeyay in Moscow iyo Pyongyang ay horseed u yihiin nidaam caadi ah oo caalami ah. booqashadiisii ugu horeysay uu ka tago xulafadiisa Shiinaha tan iyo bishii hore. Lavrov ayaa lagu wadaa inuu maanta la kulmo dhigiisa Shiinaha waxaana uu kulanka ka hor yidhi isagoo la hadlaya Shiinaha dunidu waxa ay maraysaa marxalad aad khatar u ah taariikhda xiriirka caalamiga waxaana si wada jir ah ugu soconaa nidaamka adduunka oo dhan. Lavrov ayaa ka qayb gali doona shirar dhowr ah oo Shiinuhu marti galinayo si looga wada hadlo sidii loo caawin lahaa Afghanistan. diblomaasiyiin ka socda Mareykanka iyo 7 dal oo dariska la Afghanistan, Pakistan, Iraq, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan marka lagu daro Shiinaha iyo Ruushka ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Shiini, wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Muttaqi ayaa isna ka qayb galaya kulanka. dhanka kale shirka habka wada tashiga ee Afghanistan ayaa la qaban doonaa iyadoo ay ka qayb galayaan diblomaasiyiin ka socda Shiinaha, Ruushka, Pakistan iyo Mareykanka sida ay sheegtay warbaahinta Shingon. Beijing ayaa diiday inay cambaarayso duulaanka Ruushka waxaana Mareykanku ku eedeeyay Shiinuhu inuu muujiyo rabitaankiisa inuu Ruushku ka caawiyo militari iyo dhaqaale. waxaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu barbar dhigay duulaankii Ruushka ee Ukraine iyo xukuumaddii iyo xakamayntii Shiinaha ee mudaharaadyada ka dhacay fagaaraha Tiananmen 189 sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press. xiriirka Shiinaha iyo Ruushka ayaa la arkayay isagoo soo dhawaansho hor leh dhowrkii sano la soo dhaafay waxaana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka qayb galay xafladii furitaanka ciyaaraha Olombikada jiilaalka ee Beijing bishii hore iyadoo ay si weyn u qaadaceen mas'uuliyiinta reer galbeedku oo ugu horeeya Mareykanku. waqtigaas madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu ku dhawaaqay inuu xiriirka ka dhaxeeya Ruushka iyo Shiinuhu aanu lahayn wax xuduud ah oo uu saxeexay heshiiska tamarta oo bilaayin dollar ku kacaya. Lavrov ayaa lagu wadaa inuu yimaado Hindiya kadib Shiinaha oo sidoo kale diiday inuu cambaarayo duulaanka. booqashadu waxa ay ku soo beegmaysaa xilli tii xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss iyo Talib Sting oo mas'uulka istiraatiijiga cunaqabataynta ee Washington uu cunaqabateeyay Mareykanku.